magacaygu waa Cabdiqaadir Abuukar Maxamed Ismaan waxaa garabkayga midigta fadhiyo aabahay Abuukar Maxamed Ismaan waxaa halkan u fadhinaa dhulku yaalo degmada Kaxda ee bariyahan dambe muran badan ka taagnaa burburisay Nadiifo Cali Diini ayadoo kaashanaysa gudoomiyaha maxkamadda Saalax Dabaan iyo taliyaha qaybta galbeed Mooshin dhulkaas uu milkiilihiisu yahay aabahay Abuukar Maxamed Ismaan oo sida khaldan loo burburiyay hantina lagu burburiyay waxaan halkan ka cadeynaynaa Nadiifo Cali Diini inaysan waxa ay sheegtay ay dhahday waxaa dhulka ka gatay Abuukar Maxamed Ismaan waxaan halkan ka cadeynaynaa ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa inuusan aabahay waxba dhul uusan ka gadanin dhulka aniga sharci darro kuma degnin waxaan ku deganahay documenti oo ka soo baxay gobolka Banaadir oo la heshiis ku qoran yahay Abuukar Maxamed Ismaan aabihiis in dhulka gadato wax aad qariib u ah aabahay asaga 80 jir ah oo 90 tirada 90 ku jiro waxay leedahay waxa dhulka gatay aabihiisa mar waxay sheegaysaa inuu aabahay dhulka ay ka gadatay mar waxay sheegaysaa in aabihiis dhulka gadatay aabihiis taariikh ahaan wuxuu dhintay 1958 iyadana xilliga ay dhulka ay gadanayso ama ay gadatay ay sheegaysaa 1989 iyo wax yaani aad u kala fog marka fiirisid sidoo kale waxay sheegaysaa 10 ruux oo reeyaan buu in dhulka gadatay sidoo kale hadaladeeda waxa ku sii jiray inay leedahay waxa dhulkan ay xukumay engineer Yiriso gudoomiyaha gobolka hore waxa la yaab leh yaani dhul inaysan xukumin waa la ogyahay gudoomiyaha gobolka Banaadir engineer Yiriso inuu dhul xukumin sidii sheegayso ee wareysiga la yeelanayso yaani waxa dareemaysa qaladaadka faraha badan yaani in yaani ay sheegayso waxyaabo kala duwan oo aan yaani halkan lagu soo koobi karin qof walba waa fiirsaday fariintaas qof walba mas'uul ah ama oo qof walba oo Soomaaliyeed way aragtay hadalladaas kala duwan aan muxuu ahaa dilqaafka ah halkan waxaan ka cadeynaynaa sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Dabaan wuxuu yaani ka tirsanaynaa cadaalad darro ee xidtii ugu xumeed taasoo ah in yaani dhulkeena yaani anagu dhulkeena guriyeen isku joogno aan dacwad daraf ka ahayn oo xugun nagu soo saaray oo nagu fulin nagu soo saaray xukunka ay fulintaas yaani gudoomiyaha maxkamadda waxa 5 mar wax ka badan ayaan la fariisanay wuxuu diiday inuu naqaabilo inaan la fariisano aan la hadalno wuxuu kaloo nuudi waxaan dhahnay maadaama dhulka muran ka taagan yahay gudoomiye waxaan sameeyay dhulkan geometry u dir dhulkan hala hubiyo intaas oo dhan waa naga dhiga furaystay waxaan sameeynay muxuu ahaa idaacadan u wacnay TV-aan u wacnay TV-ga markaan u wacnay aan kala hadalnay asaga ayaa noo yeeray wuuna wacay xafiiskiisan kula kulanay annaga iyo odayaasha muxuu ahaa la fariisanay marka halka aan fariisanay wuxuu nagu bilaabay tahdiid uu leeyahay yaani sababta aad uga hadli kartaan idaacada waa maxay muxuu ahaa meeshii muxuu ahaa tahdiidku nagu sameeyay oo nagu goodiyay mar dambe inaan idaacad ka hadli karin odayaashin wuxuu dhahay hadda kadib waa xirxirintiin hadda mar dambe inuu idaacad ka hadlayo sidaad inta kadib waxa dhacday waan ka soo tagnay gudoomiyihii waxaan sameeynay anagoo processka sharciga raacayno waxaan qoranay oo qareen aan leenahay waxaan qoranay muxuu cabashaan qoranay cabashada xafiiskiisa geynay anagoo nala jiro abukaataheena wuuna qaabil waay uu diiday si walba wala hadalnay muxuu ahaay inuu na qaabilo oo nala fariisto oo wixii jiro isku sheegno wuu naga diiday waxa yaani si yaani xukunkii iyo fulintii uu soo saaray waxyaabaha cajiibka aan la yaabno waxa kamid ah xugun uu soo saaray fulin uu soo saaray asaa gacantiisa ku qoray asaa documentiyada Nadiifo Diin Cali Diini ay wadato asaa fiirinayo oo dhinac walba ka akhrinaya taa waxa la yaab leh xukunkii uu soo saaray ee ku qoran yihiin dhulka booska iyo birmada yaani waxay leeyihiin sharciyo loo raaco nidaam dhulaa jiro dhulkii waxa ku qoran wuxuu leeyahay jihooyin uu leeyahay dhulku asiga wuxuu fulin ku soo sameeyay ayuu markuu soo saaray meeshii fulinta uu ku soo xukmay yaani xukunkii fulintii khaldaneed oo marka hore khaldaneed ayuu wuxuu ku sameeyay maxay ahayd meeshii fulintii loo rabi ay ahayd in la fuliyo
oo asiga gacantiisa ku soo meelaha ahayn dhul kale oo hanti ganacsi يعني كيالان أو حتى يعني بروسيس كشرعي نصمنا أو دقنين أنا سمين إن الصباح ذي ليمت أسيقو موشن يعني أمر كسوسي إنه دول كاسكي أوبر بريو دول كديجو وحيابا عجيب كلها الله يمنوا قدومي وحلينا قدوميها محكمة ذاتها كرصور كياتها يعني نوح فهنسن دينيا وماديا لسنة تشريعيا وقانون قفي غانا شرعي غانا يعني دول أديك قعنت هذا كقرتي فلنت أماشى كقرتي أو مركور مركي غير كتاجند إن يعني مالك اللي فوليو ضدكي معناها دم ويابين وأمم كاجن يعني وحيابه لا يابك له أو أنا يعني نجا يابس قدومي محكمة دنا أو عندها في سنة قبل كبنادر أهدوها سمينا ماله عقصدي أما قضب عقصدي ووحى كسمي وانجروين مركا يعني أرنتاس وسمينا ونظيفه ومحوها قرب كيدو تاجن هاي محوها هاي وحوج أرنتا وصار أنا ورن نقدر جيسين ونلفريسين وجومتر سودي دي يعني إن دول كان له بيو هانتيدان وحنا ما كجدقني وحنا قدومي أرنتان كفيرسو هانتيدان لبربرنا دول كان دول وحكد سواي دول كان هوبين وليه وحاجر جومتر جرو أو خبير كوه خبراء جوجو كيد اللي هاي قبل كبنادر جوجو محوها أي واحد دولكي مسؤول كأه لكاشو دولكان هوبي هانتينا أنت هذا بربر وحو تعدي أن لقصو كبسن كرين ومدورنا أركز ومد الصومالي أركز يونغو سميه وحا أنك يعني أن كفلينينا ماهن وحا أرنتاس وعيانا وحا اسويدين وحا كميد يعني وحيابها كوكاليفايو ناقا ما قران كرنو وحيابها كوكاليفاي إنو سا سمايو يعني دول أن جومتر لكن قف سكن نمبر وات قف دايس ديت سقالك يا وحقتي لو ما بديدون نمبر وتا نمبر كيس ماشي ku dhacayo aan aqoon geometry loo diri oo leeyna geometry ha loo dir waxaan hal hubay dhulkan dhisan iyo xoolahan yaa la burburin hantiya meesha ku taal iyadoo wada hadal iyo sharci nidaam la raaci karo ayuu wuxuu intaas oo dhan indhaha ka qabsaday inuu dhulkan fuliyo wuxuu dhahay dhulka way tagaysaa way tilmaamanaysaa fartay ku fiiqana meesha loo fuliyo muxuu ahay ay ku fiiqdo ayaa loo fulinaa waxaan aragnay motion la soo diray oo amar uu soo siiyay motion waxaan dhahnay motion geometry aan gudoomi maxay taliye geometry ma wadataa maamadan dhulkeeda meesha saxda uu ku dhacay ma haysaa aniga waxa amar u qabaa u dhahay meesha tilmaamato inaan fuliyo amar ku qabaa waxa meeshaas ka dhacay wax aad u falxun sidoo kale waxa halkan ka codsanaynaa maxkamadda sare ee dalka gudoomiye baashi in yani galkeen wuxuu yaal maxkamadda sare u yaala waxaan ka rajaynaynaa galkaas inuu noo dhaqaajiyo oo si cadaalad iyo hufnaan ku jirto inuu hawshaas u dhaqaajiyo dhibka ay murankan iska qabsiga meesha ka taagin sidoo kale gudoomiyaha maxkamaddan kulli fariin halkaan u diray gudoomiyaha waxaan leenahay wax walba way dhacaan laakiin waxaad hubin oo muxuu ahaay aan la hubinin oo la marin wixii qobar fasalu ahla dhikri ilaahay subhanahu wa ta'ala يعني waxaan ehelka dadka ehel adiga engineer matid la gudoomiye sharci qaana tahay wixii sharci ah wax laga weydiina meeshan dadka waxa iska muxuu ahaay qof walba wuxuu gooni leeyahay yani wuxuu khaas leeyahay waxa khaas leh khubara jiro oo geometry oo xilli walba taagan oo dad waaweyn ah waxa la weynayna jirin dad ehel u ahaa jiro dadkaas aan laga wareysanaa marka dadka la wareysatid oo waxa la sheeri gareysid oo la hubiyo oo iyadoo maalin cad halka la isku yimaado oo dadka la qanciyo labada jaanib la qanciyo shaqada qabatid waa shaqo xalaal oo nadiif ah wixii inta ka sokeeyo wax iska mugdi ku jiro waa sidoo kale maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa halkan fariin ugu direynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale gudoomiye waxaan ka rabnaa arintan ka taagan inaad soo faragelisid muxuu ahaa adiga meesha maadaama dhulka iyo hubintiisa aan mas'uul ka tihiin dhulkan meesha la isku haysto ee murugan ka taagan yahay ee sida khaldan ee taadiga ee xadgudubka lagu dumiyay ilaa hadda wax lagu dumiyay oo sharci ma arkayno qof number wato oo iska socdo dhulkaaga aawle leeyahay inta far ku taagan oo far ku fiiqanaha loo dumiyo waa wax aad lagu xumaado waay qof walba Soomaali ah oo meel walba taagan hadduu maxkamadda yimaado dhulkaas leeyahay loo fulinayo oo waxyaabo cajiibka ah waa wax sharciga ka fog oo wax la qaadan karin
waa waxa aad la yaabanahay dhibkaasaan qabnaa dhibkaasaan nagu dhacay hantiya meesha noogu burburtay wax qaldanaa nagu dhacay waxaan ka xunnahay dhibkaas nagu dhacay waxaan ka rajeynaynaa mas'uuliyadaas waxaan qaadayo gudoomiyaha maxkamadda Saalax Dabaan